maanta masiirkii 2016 looga gudbi lahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa la hordhigay aragtidiina iyo afkaartiina kala duwan ayaana wax lagu salay doonaa wixii idinka soo yeero oo aad idinku sheegtiin ayaan halkaas lagu qori doonaa ayadaas ayaana madallada dambe la tagi doonaa marka waa fursad aan hore noo soo marin oo aan maanta haysano inaan ka faa'iideysanana mudan markaad fiiriso boorka gadaal ku dhagan waxaa ka muuqda dhaqankii Soomaaliyeed oo ahay geed hoostiisa inay waxooda ku xalistaan waxa ku qoran oo ka korayso waa wada tashiga qarankii Soomaaliyeed oo anaga nagala tashanaya maanta qaabka uu noqonayo iyo qaabka doorashada u imaan doonto maadaama la yiri hal cod iyo hal qof ma suuragal maaha la yiri qaabkii kale ku imaan lahayd ayaa adiga kugu jira maanta oo la rabaa inaad fikirkaaga ka dhiibato waxaa laga yaabaa qof anaga naga mid ah fikirkiisa inuu asiib noqdo ay noqoto waxa dhan oo la isugu yimaado marka fikirkaaga ha gaabsanin waa fikir muhiim ah waxaan isugu nimid waxa la yiraahdaa hanaanka wada tashiga wuxuu ka yimid haddii aan ka hadlo doorka haweenka mar walba waxaa la sheegaa boqolkiiba 30 in maxay lagu soo dhiso oo haweenka ay ku leeyihiin haddana wax ku cad ma jirto in boqolkiiba 30 ay haweenka la soo siiyo waxaan rajaynaa ama aan ka codsanaa dawladda dambe oo la soo dhisay iyo waxa tan shaqada hadda lahaayo oo aad iyo aad u wanaagsan in boqolkiiba 30 haweenka sida saxda ah loo soo siiyo Ilaahay qadaro doorka ay ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed waxay tahay in ay ka qayb qaataan nabadgelyada dalka sida lagu soo celi lahaa dalka amnigiisa iyo stability-giisa inuu xasiloono helo dalka qodobada ugu muhiimsan waxay ahaayeen in si lagu heli karaa ay ku dhici kartaa doorasho maadaama uu madaxweynaha iclaamiyay in one vote one man ay noqon karin yani codkiiba halkii qof marka in maanta laga discuss garoodo laga munaaqashoodo kadib laga wada hadlo wixii ka soo bixi karo siday doorashada ku dhici karto iyo waxa imaan doona natiijo ahaan 2016 higsigiisa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin yani ololahan ama habka lagu dooranayo 2016 qaabka uu noqonayo waxa waay inay ka qayb qaataan sida uu yani wadankooda uu habka ugu fiican uu noqon lahaa iyo qaabka ugu fiican oo la dooran lahaa inay ka qayb qaataan waxayna uga hadlayaan macnaha qaabka ugu wanaagsan midka ugu wanaagsan ee Soomaaliya uu ku haboon 2016 doorashooyinka waxaana waa yani waxay muujinaysaa taas dhalinyaradu inay tahay yani fikirkooda in loo baahan yahay inay ka mid yihiin dadka ra'yigooda dadka araadooda la dhageystay oo dawladana ay dhageysatay si ay ugu salayso 2016 waxa ka soo baxay oo muhiim u ah Soomaaliya ayaheeda ayaa ka doodi doona afar qaab doorasho aan soo bandhigi doono aniga maanta waxa la iiga codsaday in xiriiriye noqdo shirkan maanta inta la isugu yimid oo meeshaan ka furmay ujeedadiisu waxay tahay qoraalka halkaas ku qoran waa wada tashi laga tashanayo oo dadka fikirkooda lagu aruurinayo sidii ay la noqon lahayd haddii la gaaro 2016 qaabkii uu waddanku u ekaan doono gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan sababta aan u soo salaam ala rasuulillah lamaan ka soo qayb galaasha sharafta leh quraca waa waxaan u baahannahay Soomaaliyeed 3 gobol Hiiraan Banaadir Shabeellada Dhexe waa laf dhabartii Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay tuusanayeen in ajandaa inta uu ka cad yahay in gabdhaha maaragtay reerihii ay gabdhuhu hogaaminayeen ay ka soo baxeen oo ilmahoodii wax barteen oo reer meel isku sheega ay noqdeen reerihii gabdhuhu ay hogaaminayeen askalka waxaan ku taliyayaa in haweenka lagu daro haddii la yiraahdo waxa talada soo gudbi doono laga soo saaro qaabka ugu haboon oo doorasho oo haddana dhici kara mid wax micnaha ma samaynayso waxa ficneed in ajandaa haweenka waad u jeedaan doonta meeshana laga siiyey waxaan aaminsanahay ummad markay masiibo ku dhacdo burbur ku dhaco haddaanay haweenka aysan dareenmin doorka ay leeyihiin kama kacaan meesha ay yaallaan
marka Soomaaliya waxay la dhutinaysaa waa laba mas'alo waa cadaalad darro dalka cadaalad darro halkaas dhigtay burburkii kadib waxa ummadda Soomaaliyeed maalin walba u taagnaana waxay ahayn haweenkana weli baska gadaal ay ka saaran yihiin ayadana waxaan dhihi karaa laakiin maantay 2016 maxaa la gudboon haweenka halkan fadhiya iyo inta maqan oo aan codkooda ku hadlaayo saddexda gobol ee meesha fadhida